gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Sheekhuuna Maye ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Sheekhuuna Maye oo maalmihii ugu dambeeyay howlo shaqo ugu maqnaa magaalada caasimadda Muqdisho ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo labada gole ee dowladda koonfur galbeed, saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa AMISOM, ururada bulshada rayidka. markii ay soo gaareen kadib dadkiina soo dhaweeyay marka ugu horeey gudoonka waxa waay waa idinkaga mahadinayna soo dhaweyntii aad soo dhaweyseen intii aan ka maqnayn insha Allah magaalada wixii warbixinna waa la soconay shaqooyinkii marka horta intii dhimatay Allah u naxariisto intii waxa waay dhaawacantan Ilaahay waxa waa u boogday runtii gudoomiyaha soo sheegay waay madaxweynaha waxa safar ku maqnaa yaana safar marka gudoomiyaha waqtiga unbaa yaraa ma oga laakiin hawsha la soo qabta hawl yar ma ahaanin marka waa hawlo badan la soo qabtay runtii waa waqtigu unbaa sukaaya keenay madaxweynaha safarkiisu kulli saa warbixin idinka siin doona aniga laakiin hawlo gaar oo baarlamaanka quseeyay inta badan baarlamaanka ku saabsan ay ahayd waxyaabaha aan u baxay khusuusan inaan hay'adihii baarlamaanka kala shaqeynay dhanka horumarinta iyo kor u qaadista tayada ee xildhibaanada iyo baarlamaankaba oo ay kulamo hadda ka hor dhowr jeer aan ku balansanay oo naga baaqday ayaan u tagay inaan wax kala soo hadlo arrimahaas baarlamaanka quseeyo iyo sidoo kale runtii arrintii kale ee ku saabsan mashruuc asagana quseeyo baarlamaanka oo ahayd in la dhiso xaruntii baarlamaanka laga dhisi lahaa ee magaalada Baraawe naftirkiisii oo xoogaa hakad galay oo arrintiisina ay xoogaa isku dhiib noqotayna inaan marka xawaa inaan meel ku soo ogaano sababtoo ah waxaa la socotaan waxa mashruucaas wuxuu ku xirnaa markii hore sidana loo sheegay mar alla markii garoonka uu dhamaado dhismihiisa in loo gudbi doono mashruucaas laakiin waxa u maleysaa xoogaa in wax iska bedel marka arrimahaas ayaan u baxnay runtii wixii aan u baxnay oo ku saabsanaa arrimaha iyo masiirka baarlamaanka iyo horumarintiisiba runtii guul weyn aan kala soo kulannay waxyaabo badan waa noo qabsoomeen insha Allah marka aad u mahadsantiin kulli madaxweynaha marka howlihiisa iyo safarkiisa iyo hay'adihii wixii la kulmay mas'uuliyiinta insha Allah asaga ayaa warbixin ka